sheekada filimkeena maanta waxay ku bilaabanaysaa gabadhan quruxda badan ee lagu magacaabo Lin Wanbai. Dadkan waxay aaminsan yihiin gabadhan inay isguursan rabaan ninkan lagu magacaabo Jian Munchen, kaasoo ah bilyaneer ka dhaxlaya company-ga Dian. Dadka badankood arkaas waxay u aamineen maadaama ay sanado badan ay gabadhan iyo wiilkaas la socdeen. Sidoo kale waxaan arkaynaa gabadhan atirshada ee lagu magacaabo Sia. Kadib markay ka timaado kalluumaysiga ayaa waxay ku soo noqonaysaa xaafadeeda. Dabadeedna waxay arkaysaa wiilkii crash ku eed muddada dheer ee Kion oo xaggeeda u soo socdo. Isla markiina wuxuu u sheegay inuu mar guursan doono. Siyan xamaasad ayaa galayso maadaama ay u malayso qofka guursan doono inay ayada tahay. Laakiin Kian ayaa u tilmaamaya gabar u dhaweyd ee Jane la yiraahdo inuu guursan doono gabadhaas inay tahay. Wuxuuna sidoo kale u sheegay inuu Jane abaheed u ballan qaaday inuu dilacsi doono shaqaalaha warshada uu ka meesha ku joogo. Boos sarna gey doono. Siya isla markaas wadnaha ayaa qaracmayo. Kian wuxuu siinay hadiyad yar uu hayay. Isla ayaa Siya ku dhahaysa Kian waxaan heli doonaa wiil kun markaa wanaagsan. Dhanka waxaan arkaynaa Jian Munchen oo dhaxli rabo company-ga Dian Group. kadib markay kulmaan maamulka sare ee company-ga isla markuu company-ga dhismihiisa soo galo ayaa walaalkiisa Xiang Shao ka hor imaanayo kadibna wuxuu ku leeyahay sidee ku naqatay qofka kaliya oo uu ku kalsoon yahay. Xiang asiga u jawaabin ayuu isaga tagayaa magobta halka Shao oo haraysan oo secretary-giisa ku dhahayo idgooni waa inaa ku fiirisaa ninkani. Xiang markaan awgiis ayuu la kulmaya kadibna awgiis ayaa ugu mahadcelinayo sida dhaqsada leh oo ku soo gabagabeeyay project-kiga loo diray. wuxuu u dhibayaa bashqad ay ku jiraan sawirada markuu soo bixiyay wuxuu arkay gabar sawirkeeda awooyi ayaana shuruud ugu dhigay company-ga hadii uu rabo inuu la wareego inuu gabadhan soo guursado meel alla meesha joogtana uu soo helo. dhanka waxa arkaynaa Kian inuu guursanayo gabadhii leeyahay Jane dadkii xaafadana dhamaan ay u hambalyanayaan. Siyaana sidoo kale waxay joogtaa goobta xafladda ka dhacaysay isla markaas saaxiibkeed hore iyo saaxiibtiisa ay maraan way soo dhacaysaa. isla markaas ayaa Jane waxay bilaabaysaa inay ku maadayso Siya inay ku dhahdo balwadaya qofkan camal qofkan ayaa guursanayo qof noocaan sidoo aan u taalo. isla markaas ayaa Shao agteeda soo fadhiisanaya wuxuu isku dayaa inuu caawiyo laakiin Jia oo goobta taagan ayaa ku qaylinaya koondhahayo gabadhan waa xabadeydii ay gacanteeda taabanin halka Shao isla markii uu ku doodayo inay warbaahinta dham ay ku sheegaan Lin Wanbai inay saaxiibtiisa tahay ninkan oo iyada dib ugu laabto. si walba ahaato Xiang ayaa wuxuu u booteenayaa inuu iibinayo dhammaan shirarkiisa company-ga lacag qiimo hooseysan ku iibinayo haddii kale meesha uu isaga tago. Shao-na markaa wuxuu qosmanaa inuu isaga tago oo isaga tagaya goobta kadib Xiang uu soo qaadaya kadibna baawarkiisa gadaal ayuu gelinayaa kursiga gadaal ayuu fadhiisanaya. isla markaas ayaa darawalkiisa wuxuu kula tasanayaa gabadhan inuu sidee taa u ka bedelo dharkan uu ka bedelo kadibna awgiis uu wado. laakiin Xiang ayaa dhahay sidan ayaa uu geenayaa si uu awgiis markuu arkay sidii u taalo uu fikradiisa u bedelo. isla markaas ayaa arkaynaa Shao oo wacayo Lin kadibna uu sheegay si walba wax u dhaceen iyo arrinka Xiang iyo Sia intay wadada sii marayeen ee uu socdeen awoowaha ayaa Xiang wuxuu adkaysan wayaa shirka ka soo baxaya Sia maadaama la dabatay iska hid gabadhani. isla markaas ayaa Sia waxay bilaabaysaa wasaqda ay meesha ku hadlaysa inay tartarto halka Xiang uu ka joojinayo iska dhaaf dhahayo. Sia ayaa intay soo boodo waxay ku leedahay cid jirkayga taaban karto iyadoo amar iga qaban ma jirto haddaba ogaaw sidaa hana ii soo dhawaan oo iga fogaaw hana isku dayin inay shubiso. isla markaas ayaa Xiang oo yaab wuxuu ku leeyahay waalin noocay ay qabtaa gabadhan awoohii ii doorayo. isla markii waxay soo gaarayaan gurigii Xiang halka Sia ayaa la amakaagaysa gurigan quruxdiisa iyo weynkiisa. isla markiina waxay la yaabaysaa alaabaha dhex yaala guriga oo in la cajabaysa ayadoo u mahadcelinayso alaabahan quruxda weyn la qofkii sameeyay. awoowaha gacanyarihiisa Muujuwan ayaa u sharaxaya alaabtan waxay tahay wuxuuna u sheegayaa midkan inuu awoowaha midka uu jecel yahay alaabtan ay tahay. isla markaas ayaa goobta waxa soo gaaray Lin Wanbai. Xiang isla markii isku naxaysaa maadaama ay gabadhan ka arki jirtay TV-ga la yaab ayaan ku noqonaysaa inay horteeda soo istaagto. isla markaasna gacanyarihi awoowaha ay gadaashiisa ku dhuumanaysaa wuuna ka wareegaya goobta. Lin isla markii waji ay isku arkayaan halka shirkeeda ay la yaabayso maadaama Lai Xiang wali uu ka soo siirayo Sia. isla markaasna awoowaha ay isku tagayaan Lin Wanbai ayaan wuxuu ku qaldayaa Sia inay tahay laakiin gacanyarihiisa ayaa isla markii u sheegay inay ayadeen oo gabadha ka gadaalaysa ay tahay. isla markaas ayuu wuxuu bilaabayaa inuu amaan la dul dhaco gabadhii wuxuuna ku leeyahay isla sidii yaraantaada ahayd ayaa tahay. wuxuuna sidoo kale u sheegayaa inay sababtay halka u joogto ay mar dhow uga doonto. isla markaasna goobta ayuu isaga tagayaa asigoo u sheegaya inay ismartiyeen familkan ay kala barato. markuu baxna Xiang iyo Lin Wanbai goobta ay isaga tagayaan ayagoo Sia kaligeed meesha u tagayaan. isla markaas guriga inay ku dhex wareegtay ay bilaabaysaa iyadoo dhex iska socota iyo isla markii sarqanaysa laakiin isla markaas Shao ayaa qabanayo asigoo atoor amal u qabanayo. Xiang aad ay ugu farxaysaa ninkan in la kulanto waxay niyeysanaysaa iyadoo la ciyaarayso markaan laakiin Shao wuxuu adkaysan wayaa shirka gabadhan ka soo baxayo isla markiina wuu sii ku fayaasina halka Sia ay ka kor dhacayso markaan iyada. dhanka Lin ayaa arkayna uu weydiinayso Xiang sababta awoowihiisa uu doortay gabadhan. Xiang wuxuu ku leeyahay ma garanayo sababtaas aniga haddaba hadii saas tahay ma guursanaysa ay ku leedahay laakiin asiga uu jawaabin ayuu isaga tagayaa goobta halka Shao markaan uu wadaayay gabadhii Sia ahayd kadibna dhar badan loo keenayo laakiin Sia dharka badan uu keenay mid ay ka heshay ma ku arkayso meesha. isla markaas ayaa Xiang imaanaya kadibna dhar ayuu keenaya wuxuuna keenayaa shaqaalaha wuxuuna leeyahay gabadha u geey halka Lin Wanbai weydiinaysa dharka muxuu yahay wuxuuna u sheegayaa dharkan inay xirneyd hawadiisa markii awoowiis ay ka xanaaji jirtay dadka hortiisana ay ku caabay jirtay dharkan aad u neceb yahay markuu ku arkana gabadhan dharkan inay xiran tahay
iyo xasaasiyadda ku kacayso gabadhan oo cirid doono Siyaana markaa waxaan arkeenaa markeed ugu horreysay oo make up loo marinayo tintan loo hagaajinayo kadibna dharkii hadiyada ayaa loo keenayaa waxaan leeyahay dharkan soo xiro waa dhar khaas oo Jian kugu tala galay Siyaana markaa way soo baxaysaa waxayna u maanaysaa Jian oo qolka ku jiro maadaama kabaha hayl weligeed ay gashan kabihii ay ku kufaysaa kadibna Jian ay kor dhacaysaa isla markii inta isku xishooto ay ka boodaysaa meesha isla markaas ayaa goobta waxa soo gaaray Lin waxayna leedahay dharka ay xiranta iyo waxay leedahay dharkan see u ala halka Jian uu leeyahay dhar aad u cajiib waayay nakeen baxna ay ku leedahay ayadoo ku xumeynaysa Siya intay dhaxsii marayeen ee Jian wuxuu arkayaa show uu telefoon ku hadlayo oo qof la hadlayo halka Siya ay markaa iska joogto goobtii make upka ayna sugayso qof ka wado meeshani laakiin cidna uu maamayso oo waqtiga ayaa ku dhamaanayo waxaan loo sheegayaa goobta in la xir rabo ee isaga baxdo meesha isla markay soo baxdo ayay waxay bilaabaysaa qof inay wacdo qofkiina telefoonka ma ka qabanayo isla markiina roob ayaa bilaabanayo oo korkeed ku daayo dhan kale Jian oo halkan xafladda joogo qof walba oo xafladda soo galaysa ayuu fiirinayaa asigoo u malayo Siya mid in la socoto laakiin markuu ogaado waqtiga hadalkan inay soo gaarin Siya goobta wuxuu go'aansanayaa gabadhan inuu soo raadiyo goobta ka soo raadiyo halka Siya wadada kaligeed iska marayso iyadoo roob ku daayo ayaa baawur gadaasheed ka soo baxay kadibna naalka markay aragto way soo xaysaa kadibna dadka ayaa ka soo waday gees in fadhiisanayo ayagoo weydinaya inay wax gaarin in kale isla markaas ayaa Jian goobta soo gaaray kadibna dadka ay kala ciirinaya wuxuuna halka ka gargawaaqsanaya gabadhan inay jaraynayso qabow aad xun u hayo isla markiina jaakadiisa ay u siibaya inuu kor saaraya isla markaas ayaa Siya soo boodaysa kadibna hab ayay siinaysaa waxayna u sheegaysaa qof kaliya iyada ka walwalay inuu asiga yahay aadna ugu mahadsan yahay arrinkani Jian asina hab ayuu siinaya asigoo niyadda u dhisay gabadhani isla markaas ayaa wixii wuxuu soo gaaray goobta xafladda ka dhacaysay waxaan u sheegayaa qof walba inay dhageystaan wuxuu sheegay doono iyo sababta xafladdan loo dhigay inuu sheegi doono halkan ka sheegi doono shawna sidoo kale xafladdan ayuu joogay gabar kale ayuu wataa awoohi ayaana sheekadiis ku bilaabayo waxa jiray nin saaxiibkay ahaa waxaana ballan ku wada galnay ilmaheena inaan isku darno arrinkaasna ilmaheena ma fulin karin oo ballantaas waa fulin weynay laakiin hadda aan ku sameeynaa ilmaha awoo u nahnay inay fuliyaan arrinkaasi wuxuuna sheegayaa saaxiibkiis inuu geeriyo aad waqti hadalkan una joogin marka ballanta asiga uu fulinayo wuxuuna halka ka sheegayaa inuu Shaw Siya guursan doono Shawna indhaha ayuu tagayaa asigoo u maleeyay rabay inay Jian lagu darayo gabadhan Siya dhan kale Jian ayaa wuxuu ku leeyahay Siya awoo ayaan sugayo waa ina soo baxdaa isla markiina gaariga ayay soo galayaan wuxuuna u dhibayaa shukumaan si qoyaanka isaga tirtirto inta iska tirtiraysa ayuu wuxuu ku arkayaa gacanteeda inuu dhaawac ku yaalo kadibna dhaawac ayuu weydiinayaa waxayna ku leedahay waa iska caadi isla markiina ma dhageysanayo dhakhtar ayuu wacayaa dhakhtarkiina wuu imaanayaa isla markiina wuxuu isku dayayaa inuu daaweeyo gacanta laakiin dhakhtarka markuu arko dhaawaca yiriiska ee meesha ka muuqdo aad ayuu u yaabayaa sababta ninkan uu soo wacay asigoo dhakhtar weyn ah dhaawacan aadka u yar Jian ayuu ku leeyahay dhaawacan kaligiis isaga ayaa iska bogsoonayo wax daawo u baahna maxay ii wacday Jian oo markaa isku xishooday ayaa goobta ka istaagay asigoo iska dhigay inuu kool u soo dhacay kadibna qabanayo beebeen u qabanayo isla markaas ayaa dhakhtarka wuxuu sheegay Siya inuu weligiis arkin Jian inuu qof sidan ugu taxadirayo abadkiisa arkeen qofkii ugu horreeyay ee qaali ku ahna ay iyada tahay isla markaas Jian ayaa qolka ku soo laabanayo dhakhtarkiina wuxuu iska tagayaa intuu tigin ayuu wuxuu sheegay inuu gabadhan ka taxadiro kadibna labadooda gaariga ay soo raacayaan si xafladda u soo aadaan markaas ayaa Jian wuxuu u sheegay Siya inay guursato Shaw bisha soo socoto isla markii arrinkaas maqashana way ka soo horjeesanaysaa wuxuu ku leeyahay macquul ma inaan ka guursado aniga Jian wuxuu sheegay sababta halka uu joogto inay tahay ninkaas inay guursato waxayna u sheegaysaa inay xiisaneen ninkaas inay guursato iyada waxayna ku dhahaysaa xiriir walba oo lamaana isku qanacsanin ay isku guursadaan xiriir shaqeynaya ma noqon doono oo mid burbura ayuu noqon doonaa kadibna banaanka eegaysa waxaan arkaysaa xeebta inay ag marayaan waxaan leedahay gaariga ii jooji xeebta inaan wax ku soo leersado kadibna banaanka ay soo baxaysaa oo xeebta ay soo istaagaysaa kadibna waxay bilaabaysaa inay qayliso isla markiina Jian ay gacanta ka qabanaysaa inay la ordaysaa Jian waqti noocan weligiis badda kuma qaadan dhan kale waxa arkaynaa Shaw oo dhiigiisa meel la saaran lahayn xanaaq dartiis isla markaas Jian ayuu qabanaya darbi inuu saarayo wuxuu ku leeyahay sababta gabadhan lagu daray maxay tahay halka Jian uu ku leeyahay aniga waxba kama ogi arrinkaas awood ayaa weydiinaysaa Shawna isla markaas wuxuu leeyahay awood ayaa u tagaya kadibna hadda ayaa ka soo dhacsiinaya arrinkan inuu bedelo laakiin gacan yarihii ayaa ka celinaya wuxuu ku leeyahay ninkan waa garanaysaa nin aad u madax adag waay go'aanka u gaaranay cidna laga yaabo inay ka bedesho ee isku daalin wiliyow halka Jian markaan Siya u sheegay hadii inay ogoleen ninkaas inay guursato inuu awoodiis kala hadlayo inuu sheegayo inay gabadhan ay doonayeen ninkan inay guursato isla markiina guriga ayuu keenaya kadibna wuxuu isku dayaa inuu sii baxo kadib markii aragti kale weyn inuu keenay isla markii uu istaajinaysaa isla markiina waxa uu imaanaya gacan yarihii awooha wuxuu u sheegay hadii ogolaato Shaw inay guursato gurigan weynka inay ayada la doonto hadii diidana wax ay lahaaneen Siya ayaa isla markii ku dhahayso ikhtiyaar kale ma jira miyaa wuxuu ku leeyahay maya isla markaas ay warwareeraysaa isla markiina Jian ay qabanaya gaariga ayuu gelinaya Jian isla markii wuxuu soo aaday awoohiisa wuxuu u sheegay inuu joojiyo duwinta uu duwinayo gabadhan mustaqbalkeeda halka awoohi uu jawaabayo inuu wax walba gabadhan siinayo ninkan xataa weligiisa Shaw xataa uu ku darowhayo waxna uu ka haleyneen Jian ayaa isla markaas ku dhahayo qof kale nolosheeda go'aan kama gaari kartid adigoo la tashan nolosheeda mustaqbalkeeda gabadhaas ayada go'aan ka gaari karto halka awoohi uu ku doodayo inuu bal dhoofinayo aabaheeda balantii uu ka qaaday mustaqbal fiican gabadhan u sameeyo isla markaas ayaa Jian u xanaaqsan goobta isaga tagayo dhan kale Siya ayaa qolkeeda la keenaya kadibna isla markii Shaw ayaa u soo galayo wuxuuna bilaabay inuu ku kor fadhiisto gacmaha uu ka qabto kadibna wuxuu bilaabayaa
inuu galismaan ka furo asigoo u sheegay in noloshiisa baabi'isay nolosheedana uu baabi'i doono waqti xaadirkan isla markaas Siya intay cabsatay ay qaylinaysaa isla markiina uu iska daynaya laakiin intuu bixin ka hor ayuu wuxuu ku leeyahay iga joog oo afaarihiga ka bax subaxdii waxa arkayna in la isku imaado meesha quraacda Siya markay soo gaartay awoohii ayuu wuxuu ku leeyahay Shaw agtiisa fadhiiso laakiin saxankeeda inta soo qabtay ay Jiyan agtiisa fadhiisanaysa isla markaas galaas meesha yiilay ay cabid biyo caadi u marinaysa ay qabsanaysa kadibna way cabaysaa laakiin galaaska biyo caadi ma ahayn khamri ayuu ahaa isla markaasna way sarqaamaysaa awoohin ayaa markay gabadha in meesha goobta laga wado kadibna waxay galaysaa Jiyan qolkiisa sariirtiisa inay jiifanaysaa Jiyan quwaas ka soo baxay arkayo inta cid kale arkin ayuu qabanaya kadibna wuxuu soo xambaaraya qolkeeda ayuu keenayaa gaanyare awoohi ayaa wuxuu u imaanayaa Siya kadibna wuxuu u sheegayaa inay maalin kasta ay nadiifiso qolka Shaw haddii ay doonayso nolosheeda inay wax ka bedesho markaas Siya waxay ku qasban tahay inay amarkaas fuliso wana bilaabaysaa markaan waxaan arkaynaa Siya oo maalmaha kamid ah nadiifinayso qolka Shawna oo hal meel oo maanta dhan nadiif ku leeyahay oo ku amray inay nadiifiso maanta dhan markaan gabadhan waxay go'aansanaysaa Shaw inay soo xirigeliso jacaylna ay ku abuurto waxayna list garaysanaysaa wax allaale wuxuu jecel yahay wuxuu neceb yahay habeen kamid ah ay qamri isku soo daldalaysaa kadibna qolkiisa ay soo galaysaa waxayna ku sugaysaa asiga Siya halkaas dabin ugu dhigto laakiin nasiib darro qolka waxa soo galaya Jiyan bedelkii uu soo galahay Shaw isla markiina waxay u malaynaysaa Shaw wayna ku boodaysaa isla markiina way shuminaysaa isla markii bilowdo galismankiisa inay furto ayuu wuxuu ku leeyahay jooji waxa sameynayso anigu maahi qofka ii malayso oo Shaw maahi oo Jiyan ayaan ahay isla markiina inta isku dhaxyaad ay soo cararaysaa iyadoo cabsanayso aadna ugu xun waxay samaysay habeenkii waxa arkayna labadooda inay labada hurdo ay ka soo dhaceenin oo shumiska shumiyaan u saameeyay Siya markay waxay garwaaqsanaysaa inay Jiyan ay fool kulun karin ay ka cabsanayso kadibna waxay go'aansanaysaa in guriga isaga tagto kadibna dharkeeda ay soo urursanaysaa waxayna bilaabaysaa jarjar inay soo degato si guriga u dhumato laakiin si walba ahaato Shaw ayaa arkayo oo qabanayo isla markiina wuxuu bilaabay inuu ku eedeeyo inay tuuga tahay guriga ay wax ka hadaysay halka Siya isku dayaysa sida wax u dhacay inay u sharaxdo laakiin ma ka dhageysanayo borsada ay qabanaya kadibna alaabteeda ay daadinaya ugu dambeyn wuxuu garwaaqsanayaa gabadhan inay doonayso inay goobta isaga tagto laakiin waxa la yaab ku noqonayso gabadh oo tuulo ka timid sidii u diidaysaa nin asaga camal ah oo lacag leh laakiin si walba ahaato uu caawinaya gabadhan inay guriga ka baxsato waxayna ballan uga qaadaysaa gurigan dambe inay ku soo noqon doonin iyada laakiin waxay la socon waxa meesha ka dhacay dham Jiyan qolkiisa ayuu ku daawanayay meeshiisana ka maseeraya aad ayuu ugu xanaaqay arrinkaas isla markaas waxa arkayna Jiyan oo hotel tagayso kadibna qol ijaareynayso qolka isla markay galayso ayay waxa gabar kale oo xaafadeeda deganeed ay arkayso gabadhan waxay gabadha ugu xanta badan xaafada waxantii farashkeeda ay soo qaadaysaa kadibna xaafada ay keenaysaa waxayna u sheegaysaa gabadhan inay aragto xalay Shaw inuu qol geenayo hotel Shaw familkiisana gabadhan iska soo racdayeen gabadhay u sheegaysan waxa ku jira Jane aad ay ugu farxaysaa maadaama guuldaradeeda gabadhaas ay rabto waxayna isku haysataa markaan gabadhan inay ka guuleysatay iyada Jiyan markuu gabadha guriga ka waayo isla markiina Shaw ayuu qabanaya kulitiga ka qabanaya kadibna wuxuu ku leeyahay meesha geeyay gabadha sheeg halka Shaw uu ku leeyahay gabadha saddeetan dhab ugu taxadiriso waa in adiga guursataa maxaan igu soo turturaysaa laakiin waxa la yaab ku noqonayso isla markiina Jiyan wuxuu sheegayaa inuu gabadhaas rabo inuu guursado naftiisaba isla markiina wuxuu bilaabayaa inuu soo raadiyo gabadhan dhanka kale waxa arkayna gabadhii macallimada xanta ahayd ay u imaanayso Jiyan qolkii deganeed kadibna qolka intii qoraaday warqad meesha u dhigaysaa warqadan waxa ku qoran Jiyan ayaa meel kugu sugaya cawada 3 saac Siya isla markaas waxay go'aansanaysaa goobtaas inay aad ay ku sii ugu lakonto Jiyan isla markii hotelka ka soo tagto laba gabdhood iyo Jane ayaa soo daba raacayaan isla markiina mid kamid ayaa qabanayso qortiga qabanayso waxayna waji u gelinaysaa biyo ayadoo qaadanayso amarka Jane maadaama biyaha ay muddo ku celisay oxygen oo ka dhamaaday ay Siya soo haysaa markaan isla markiina way iska tuurayaan gabdhihiin isku naxaan ay argaxan ay ka cararayaan goobta ayagoo u cararayaan inay dhimato gabadhan Jiyan gabadhan soo raadinaya hotelka ayuu helaya hotelka markuu wacana wuxuu sheegayaa hotelka ninka iska lahaa gabadhan inay hotelka iska tagtay gabdha xaafada tuulooyinka ka yimidna ay raacday maadaama arrinkaas uu maqlay shaki ay galay kadibna wuxuu dawgalayaa gabdhihii meelaha ka baxeen ugu dambeynna warehouse-ka ay gabadhan ku jirtay ayuu imaanaya wuuna isku naxaya gabadhan oo suuxsan markuu arko balse nabiyad wanaag inaha ay kala qaadaysaa Siya markay Jiyan aragtana hab ay siinaysaa iyadoo aad ugu faraxsan la kulankiisa ciqaabta la marsiiyay ayay uu sheekeynaysaa kadibna uu soo qaadaya guriga ayuu keenayaa asigoo Shaw ku qaylinaya sababta uu gabadhan ugu caawiyay inay baxsato Siya markaan qanasaayid ay qabanayso Jiyan habeenkii oo dhan inuu ka taxdir ayuu bilaabayaa gabadhani oo uu xanaaneeyo isla markiina hurdo ayuu la dhacaya agteeda ayuu jiifanayaa subaxdii ka Jiyan gacanyarihiisa ayaa u maanaya kadibna wuxuu u sheegayaa qofka sidaa yeelay gabadhan inay yihiin saaxiibkeeda hore saaxiibtiisa iyo saaxiibadeeda Jiyan markaan wuxuu go'aansaday gabadhan inuu argudo wax walba dhacaba markaan Siya way soo naaxaysaa kadibna Jiyan ayaa wuxuu weydiinaya sidee dareemayso waxaana ku leedahay waan fiicanahay kadibna wuxuu ku leeyahay isdiyaari oo waxaan aadaynaa warshadii oo tuulada ku tiilay kadibna goobta ayuu keenayaa waan la yaabaysaa meeshuu keenay maxaa yeelay waa meeshii xalay sida loogu galay sida xun wuxuu ku leeyahay soo gal markay soo gasho waxay arkaysaa Jane iyo labadii gabdhood kale oo aad loo ciqaabay iyana isla sidii u ciqaabeen loo ciqaabay iyana oo goobta fadhiyaan oo oynayaan laakiin Jiyan waxa la yaab ku noqonaysa Siya isla markii way qaylinaysaa waxayna ku leedahay ka joojiya oo gabdhahan sida ha u gelina Jiyan uu joojinaya isla markiina wuxuu u digayaa gabdhahan inay dambe gabdhahan agteeda ka soo dhawaadaan Jiyan Siya wuxuu u sheegayaa inuu ogolaan cidna inay dhibaatayso gabadhani halka Siya ay u sheegayso inay waalid la'aan ay soo kortay dhibaatooyinka ka daran ay soo martay
waxaasna xabad ay leeyihiin waxayna u sheegaysaa inay qof adag ay dareemayso markuu agteeda taagan yahay isla markaasna hab ay siinaysaa iyadoo u mahad celinayso waxyaabaha uu qabtay isla markaasna wuxuu ka codsanayaa inay asiga guursato Siyaana aad ay u farxaysaa isla markiina way ka ogolaanaysaa inay guursato asiga laakiin la yaab wuxuu raacsiinayaa inuu guursanayo sababta uu guursanayo ay tahay inuu kambaniga la wareego kaliya mar alaala markuu kambaniga la wareego wax walba ay sidoo raba ay u toosaan inuu ay isfuri karaan nolol aad u fiican ay ku noolaanayso hantina uu sii doono ayadoo aad ugu xum qalbigana ka jabtay ay ka ogolaanaysaa isla markaasna awoohii ay isku la tagayaan Jiyan ayaan u sheegayo shaw arooska oo gabadhan ku darrabay inuu joojiyo halka awooha uu ku leeyahay sababta uu joojinayo maxay tahay wuxuu u sheegayaa asiga iyo gabadhan inay jacayl ka dhaxeeyo inay doonayaan in ay isguursadaan isla markaasna awoohii wuxuu u sheegayaa Jiyan inuu mar dhow go'aankaas gaari doono oo iska baxaan hadda dibna uu sheegi doono wuxuu go'aan ku gaaro isla markaasna awoohii gacan yariis ayuu wacayaa wuxuu ku leeyahay labadooda indhaha ku hay oo waxa laga yaabaa waxaan inay been yihiin ay qorshe been ay soo degaan aniga Juwan isla markii wuxuu bilaabayaa Jiyan iyo Siya inuu daba raaco laakiin Jiyan wuu dareemayaa arrinkani Siyan sidoo kale way dareemaysaa inuu ninkan daba raacayo isla markaas ay Jiyan wacaysaa kadibna waxay u sheegaysaa Juwan in laga yaabo inuu jecel yahay iyada halka Jiyan intuu ugu qoslo ay ku dhahayo waxaas niyadda ka saar kadibna Siya ayuu wuxuu ku leeyahay awoo waan xariifa inaan been sheegin hore ayuu ku soo saari kariyaa isla markaas ayuu Lin Wanbei wuxuu ka codsanayaa inay barto gabadhan jiliinka wayna soo weydaysaa waxayna keenaysaa goobta filmaanta lagu jiro waxayna siinaysaa script ay ku qoran yahay filim jacayl ah iyo sida loo jilo jacaylka kadibna director hortiisa ayay ku sameynayaan laba mar ay isku dayaan ku guuldareysanayaan laakiin markii saddexaad waxay u soo baxayaan laba lamaanaan caadi ahayn sidii u jilayaan director-ka xitaa uu la yaabaya arrinkan isla markiina wuxuu maseer gelinayaa Lin Wanbei markay guriga timaadana ooyin ayay la dhacaysaa dhanka kale waxaa arkaynaa awoowihii oo sawirada looga soo qaaday gabadhan iyo wiilkan fiirsanaya aad ayuuna ula dhacayaa wuxuuna qaadanayaa jacayl dhaba inuu ka dhaxeeyo labadooda ugu dambeynna awoowihii markaa wuxuu ogaanayaa gabadhan iyo wiilkan in isguursadaan wuuna u wacayaa wuxuuna shuruud ugu dhigayaa projectiga la doonayo tuulada in looga dhiso goob raaxo inay ku soo guuleystaan isla markaas show ayay weydiinaysaa wuxuuna u sheegayaa projectigaas in project 3 sano la sugayo uu yahay hal nin oo diiday boss oo ku leeyahay meesha inuu iibiyo haddii ay qofkaas ka soo dhadhacsiiyaan ay ku guuleysan doonaan projectiga isla markaas ayaa Siya iyo Jiyan u maanaya ninkii waxayna isku dayayaan inay ka dhadhacsiiyaan laakiin uu ka diidayaa intii la hayeen ayaa Siya gurigiisa xoog ku galayso si ay musqul ugu soo gasho kadibna waxay ku soo arkaysaa sawir ayada laakiin markay soo baxday ay sheekaystaan wuxuu u sheegayaa inuu gurigan xusuus aad u weyn u yahay uuna doonayo inuu iska gado sida darteedna isaga tagaan goobta markay ka soo tagaan ay heebta iska soo marayaan ayagoo sheekaysanayo kadibna goobta ay waxay ku arkayaan isla asigii oo meeshii isku dayay inuu malaay dabto laakiin si wacan aan u aqaan sida malaay loo dabo Siya ayaa soo cararaysa maadaama khabeer ay ku tahay kadibna tips ay siinaysaa iyo qaabka u fiican ee malaayda loo dabto kadibna wuxuu ka codsanayaa inay dib u kulmaan markay kulmaan wuxuu weydiinayaa sababta ay doonayaan gurigan inay gadaan iyo sababta projectiga lagu soo dhiibay Siya ayaa u sheegayso inuu gurka shuruud looga dhigay inay gurigan ku soo guuleystaan inay gadaan mashruucna saas ay ugu guuleystaan si loogu fuliyo mashruuca halkaani kadibna sawirka ay tusayaa sawirkana qof kale ma aha gabadhan waa hooyadeed wuxuu u sheegayaa hadda hore inuu halkan ku jeclaaday laakiin ay u soo tageli weysay inuu guursado iyada maadaama arrinka uu qosay jacaylna oo uu ka ogolaanayo markaan inuu guriga ka qado sidaas inuu dokumentiyada ugu saxiixayaa guriga isla markay ka soo tagaan ayaa telefoon waxa u soo dhacaya Jiyan telefoonka markuu ku soo hadal isdhahana niman ayaa meesha u fadhiya oo fiirsanaya labadooda gaariga ayaan xool u soo wadayaan si ugu dhuftaan isla markiina Jiyan ayaa arkay inuu soo ordayaa asiga ka tuurayo gabadha laakiin nafsi dara asiga ayuu jugsiinaya gaariga Siyan aad ay ugu naxaysaa inay ninkan wax gaaraan kadibna isbitaalka ayaa la soo cararaya Jiyan dhanka kale waxaa arkaynaa Juwan oo awoowihii u tagay kadibna u sheegayo inuu Jiyan u fiican yahay oo waqti xaadirkan khatarta uu ka badbaaday waxaan halkan ka ogaanaynaa gaariga gabadha dardarabay inuu soo diray isla awoowaha Juwan markuu weydiimayo sababta uu waxaas u sameeyayna uu ku xanaaqaya oo sababta isaga tagay uu ku leeyahay marka waxaan arkaynaa Lin Wanbei oo isbitaalka ugu imaanayso Jiyan ayadoo markaa macsalaameynayso una sheegayso inay shaqo goob kale ka heshay magaalo kalena u guurayso maadaama jacaylkeeda ninka ay ku guuldareysatay isla markaas ayaa awoowihii soo galaya goobta Jiyan ayuu u sheegayaa inuu wax walba ku guuleystay markaana uu waajib u tahay inuu ku wareejiyo dhaxalka sidoo kale Siya ayuu la kulmayaa kadibna wuxuu sheegayaa inuu guriga diyaar yahay ee tagtay ay soo fiiriso muddo kadib waxaan arkaynaa Jiyan iyo Siya oo dukaamaysi ka soo laabto kadibna guriga soo gaarayaan isla markii guriga imaadaan ayay waxay arkayaan gabar kale oo guriga joogto awoowihii ayaan u sheegaa gabadhan in la yiraahdo Sumey oo na dhalan milkiilaha Suuq Group family tajirin ay ku soo jeedo gabadhu guursanayna gabadhan ay tahay isla markaas Jiyan arkaa uu maqlo Siya ayuu soo qabsanaya isagoo soo dhaweysanayo wuxuuna dabraacay awoowhiisa soo qolka la galayo awoowhii wuxuu diinaya sababta go'aankiisa u bedelay halka awoowhii uu jawaabay gabadhan hadii uu guursado inuu kambanigiisa faa'iido u tahay markaas ayuu weydiinaya sababta uu ogolaatay marka hore inay isku guursano gabadhan maxay ahayd halkan ayuu awoowhiisa runta ugu cadeynaya gabadhan ma ahayn saaxiibkiisa gabadhiisa ee waxay ahayd wiil uu hadda ka hor hoosoosay ku dhalay gabar uu dhalay asigana uu ka tagay kadibna gabadhan hooyadeed uu guursaday kadibna shil baawur uu ku geeriyooday arrinkan dham uu sameeyay Mr. Su inuu gurigaas ka saxiixdo sigoo u malaynaya gabadhan iyo hooyadeed in la familka aqbaleen si waana gabadha ula dhaqmayaan waxaana dham gurigaas in la saxiix darteed uu sameeyay Jiyan arka markuu maqlo aad ay u xanaaqaya sigoo xanaaqsan inuu ka soo tagaya isla markuu albaabka furan wuxuu arkaya Siya oo goobka istaagsaneed arrinka meesha ka dhacayna dhamaan ay maqlaysay oo oynayso
siyaan iyadoo aad u murugaysan ay furay tusinaysa guriga kadibna way macsalaamaysaa maadaama ay meeshaan waxba u aalin wayna isaga tagaysaa goobta muddo kadib waxaa arkaynaa siya oo ka shaqaynaysa maqaaxi TV-gana ka fiirsanaysa arooska sida uu dhacayo ayadoo u malaysa Jian inuu gabadhii guursanayo kadibna arooska way ku weynaysaa goob TV-ga kadibna xeebta ay isaga soo aadaysaa si isaga soo leersato isla markaas ayaa Jian goobta soo gaarayo wuuna u imaanayo wuxuuna ka codsanayaa inay asiga guursato maadaama qofka kaliya uu jecel yahay iyada ay tahay wayna ka ogolaanaysaa sida ay isku guursanayaan labadii isjeclaa isku dayeen in la kala geeyana halka ay isku helayaan haddaba sheekada hadda ka hesho halka nala soo gaartay fadlan like noo saar haddii aad nagu cusub tahay subscribe tan aniga ilaamin wixii ra'yi aa qabtana halka nagu reeb share haddii nagu darayso aad bay u fiicnaa lahayd nabaday waa inoo kulan dambe